السلام عليكم ورحمة الله. كسر وجرانكنا الساعة تكنولوجي. maanta muuqaalkan ka wuxuu ku saabsan yahay afar application oo soo baxay inta lagu guda jiray 2020ka. applicationada waa kuwa aadniga aad ii qanciyay ana ka helay isticmaalkooda. waxaan filayaa adna inaad ka heli doontiin. haddaba dhammaan applicationada waxaad ka heli doontaa commentiga u horeeya bink ugu soo doona halkaas ayaad kala soo deegi kartaa. ku soo dhawaada muuqaalkeena. abka u horeeya waxa la yiraahdaa Microsoft Math Solver. haddaba abkan waa abka caawinaya inuu xisaabta kaaga shaqeeyo noocay doontaba ha ahaatee. waxaan filayaa abkan inuu si weyn ku anfici doono. waa soo fureynaa haddaba saad isticmaalkana aragno iyo isticmaalkiisa waxyaalaha uu leeyahay. haddana abkan wuxuu ka kooban yahay 3 baarta ayuu ka kooban yahay inaad scan mariso sawirtid iyo inaad draw ku sameysid oo gacantaada ku sawirtid iyo inaad type aad qortid aad ku sameysid. saddexdaas hab ayaad uga shaqeyn kartaa. hadda waxaanu joognaa drawga ayaan joognaa bal xisaab baynu sawirnaa soo kaga shaqeynaa waa arkaynaa. halkan hoose u jeedaa in xisaabtan uga shaqeeyay usaas uga shaqeeyay. waxaad oran kartaa xisaabtan steebyada uga shaqeynaa jirada rabtay waxa ku dhuftaa get step by step solution ayaad ku dhufanaysaa. hababku uga soo shaqeeyay iyo soo marmarayba halkan ayaad ka arki kartaa oo ka fiirin kartaa. tawaynu ka gudbayna waxaan u gudbaynaa habka kale oo xisaabta uga shaqeynayo oo ah drawing. drawing halkan aad ka tagaysaa saga waxa sameyn kartaa hadda inaad saa ugu soo wadid waxaad aragtaa in xisaabtii kor nagu siiyay halka kore ayagoo sida aan hoos ugu qornay kala. ayana waa sidii oo kale sidaas ayuu noo siiyay uga shaqeeyay iyadoo paragraph ah graph iyadoo lagu sawirayo iyadoo YouTube iyo waxa video ka soo looga shaqeynayo wixii halkan ayuu kugu siinayaa. waynu ka gudbaynaa waxaan u gudbaynaa abkeena labaad. abkeena waxa la yiraahdaa history of everything. abkan wuxuu ku sheegayaa waxyaalaha noolayaasha oo ku saabsan ee adduunka ayaad helaysaa waxa ay soo kala jeedaan iyo meelaha ay ka soo jeedaan. haddana abkan waa kan wax kasta meesha ka yimaadeen ayaad ka ogaan kartaa. waxaan filayaa inuu ku anfici doono abkan. waxaan uga gudbaynaa abkeena saddexaad. application-kana saddexaad waxa la yiraahdaa Sharken Light. adoo taleefankaaga ruuxaya ayaa nalka shidaysaa adigoo aan waxba taleefankaaga aan screen iyo xiisa furin ayaad ruuxaysaa taleefankaaga nalku waa ku shidmaya. haddaba abkan si aad u shidatid waxa sameynaysaa waa soo furaysaa meeshan ayaa waxa ka dhigaysaa enable ka dhigaysaa soo kugu shaqeeyo sida hadda ka daawanaysid ayuuna kugu shidmaya. waxaan u gudbaynaa abkeena afraad. abkeena afraad waxa la yiraahdaa action dash. action dash wuxuu ku sheegayaa waxyaalaha internetka saad u isticmaashay maalintii iyo waqtiyada kaaga baxay iyo sida aad ababka u kala isticmaal badan ay ku sheegaya. waynu soo furaynaa si nu aragno daily maanta inta ugu badan application isticmaal waa kuwa kan daily ba fiirin kada weekly oo fiirin kada application ugu badan isticmaashay notificationada ku soo dhacay iyo waxyaalaha soo dhan halkan ayaa ka wada ogaan kartaa. waxyaalo badan waa iska xiri kartaa. waxa filayaa dad aad u sii gashid waxyaalo badan ayaa ka faa'iideysaa. waad ku mahadsantahay inaad la soo gaaray muuqaalka dhamaadkiisa. haddaba waxaan ku weydiinayaa su'aal waxaan filayaa inaad iga jawaabi doontiin. su'aashaasi waxa weeye waa kee abka si gaar ah ku qanciyay aan ka heshay hoos igu reeb commentiga waan akhrin doonaa. muuqaalkan intaas ku eg yahay waxa laga codsanaya inaad asxaabtaada sii gaarsiisid channelkana sii share gareysid subscribe na saaran haddaad hor u saarin like aad ka hilmaamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.